marwaniya mudanayaa caawa barnaamijka xuska sayniska teknolojiyada wuxuu noo noqon doonaa barnaamij gaar ah barnaamijkaasoo ugu talagalna inaan ka qayb galno xuska ballaaran ee guurada FAR SOOMAALIDA guurada FAR SOOMAALIDA saad u ogtiinba waxaa laga xuseeya wadankeena jamhuuriyadda Jabuuti bisha 17 ilaa 23 laga xusi doonaa waan la soo xusay sanadkan oo dhan waxaa hawshan ku soo jiray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo ururka Somali Speaking Pen oo sanadkan dhan la soo xuseeyay dunida lagu soo xuseeyay Afrika koone Jabuuti ugu dambeyn isku yimid doonaa lagu xusi doonaa bisha 17 ilaa 23 haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaa la casuumay oo imid doona ilaa dad ku dhow 100 qof oo qaarkood ay kamid yihiin cilmi baarayaal ka qayb gali doona dood cilmiyeed ka dhici doonta jaamacadda Jabuuti waxa kale oo jiray yakana carwo dhaqameed lagu soo bandhigi doono dhaqanka Soomaalida waxa kale oo yeelin jirta bandhig buugaaneed lagu soo bandhigi doono wixii buug lagu qoray Soomaalida laga qoray iyo aweys sugaaneed ayaa iyaguna jiri doona oo lagu talagalay in laga hadlo kala buugaagta jidka laga hadlo marka xuska guurada ayaan caawa barnaamijkeena xuska sayniska teknolojiyada waxaan la raacaynaa oo la xuseynaa anagoo faraxsan markaasi waxaan maxay ahayd barnaamijkii caawa Soomaali buu noqon doonaa Afrika ahaan la takala waxaan ku soo qaadan doonaa anagoo yar joojin imtixaanaheena kaga hadlaynay computerka waxaan ku soo qaadan doonaa cilmi baarista Jabuuti ka wadno xarunta cilmi baarista Jabuuti iyo gaar ahaan machadka cilmi baarista waxa kale oo soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo muddada xuskaas intuu socdo waxa la soo bandhigi doonaa qaamuus weyn oo Soomaali loo bixiyay oo ilaa 7,000 oo erey ku qoran yihiin iyo kumayaal sawir oo qaamuuskii ugu weynaa abid Soomaali samaysato ah oo lagu soo saaray wadankeena Jabuuti xarunta cilmi baarista Jabuuti iyo ururka Somali Speaking Pen isla kaashadeen wakaas marka waxaan caawa ka hadli doonaa laba mowduuc oo soo qaadan doona caawa labada mowduuc oo kala ah ta u horeysa waxa weeyaan cilmiga la yiraahdo human language technology oo af Soomaaliga turjumi karo teknolojiyada afafka aadamaha waxa weeyaan sidii afka bini'aadamka teknolojiyada ama kombiyuutarada loo barnayo loogu dabaqi lahaa ta kale waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuca labaad waxa weeyaan automatic Somali transcription ama qoraalka af Soomaaliga ee kombiyuutarka soo kombiyuutarku af Soomaaliga u qori karo hadalka u qori karo af Soomaaliga waan idin macnayn doonaa human language technology waxa uu kala kacan laba qaybood labada qaybood waxa kale qayb oraahda ama speech la yiraahdo iyo qayb qoraalka oo text ah qaybta qoraalku ee textku waxay u kala kacdaa dhowr qayboodna waxa weyn qayb tarjumada oo qofka textka wadika arkay marka Google Ingiriis waxa ku qortaan afris oo turjumi kartiin si sahlan hadda Carabi oo turjumi kartiin afka doonto oo turjumi kartiin marka waxa weeyaan cid binaadam turjumaysa ma jirto computerka turjumaya oo af Ingiriiski afris oo turjumaya afriska af Carabi turjumaya marka qaybtaasi waxa weeyaan qayb afafka ku shaqale oo waa maadada la yiraahdo automatic translation waxa jirta iyada qayb kale oo qoraalku iyada ku shaqale oo ah koobida qoraalka ama automatic abstract ama similar oo loogu talagalay haddii waraaqo ama war badan la helo si loo soo koobi lahaa si loo kooban warka intii nuxur kale loo soo qaadi lahaa taasna kombiyuutarada oo laga shaqeeya oo soo jirta waxa kale oo iyadna jirta mowduuc kale la yiraahdo su'aal iyo jawaab ama question réponse ama question answer la yiraahdo oo loogu talagalay sidii loo sii wanaajin lahaa internetka waa internetka loo socotiin imika marka Google ama aalad kale aad ku baadhaysiin internet wax ka baadhaysiin haddaad wax weydiisiin jawaab sugan inama siinayso waxayna siinaysaa bogag badan oo ka dhex dooranaysa ka dhex baadhbaaraysiin imika haddaan tusaale ahaan han weydiiyo internetka weydiiyo ka yiraahdo maxay ahayd President Obama goormu dhashay computerka ima soo jawaabay ma odhanay wuxuu dhashay waqtigaas wuxuu siin doonaa dhowr bog oo wax ku jiraan Obama laga hadlay ama dhalashadiisa laga hadlay marka aniga ka dhex raadin doona taasina waxa weeyaan waxa dhibaato waxa soo socota dhawaan la sameeyo doona hadii la yiraahdo ina computerku uu ka jawaabo su'aalaha la weydiiyo marka waa maado iyo jirto cilmi baaris lagu sameeyo oo la yiraahdo question response ama su'aal jawaab la yiraahdo oo la rabo in computerku su'aalaha la weydiiyo si kooban oo moogtahay oo sax ah ku jawaabo oo wax badan soo bandhigin taas inta qoraalka inta oran qaadan laba sida shashada lagu muuqata laba qof oo wada hadlay waa bari oo la hadlay Rooble waa bari Rooble wuxuu kale nabad iyo caano Rooble soo garta oraahda waa bari wuxuu u baahan yahay saddex arrimood ta koobaad wuxuu u baahan yahay dhawaaq waa inuu maqlo dhawaaqa ka soo yeedhay waa bari dhawaaqaasi hadduu ka fog yahay oo Rooble saan u maqlayn Rooble markaa ma garan karo waa bari wuxuu yiri waa inuu dhawaaq soo gaadho dhagaha Rooble talabada inuu Rooble dhagihiisa caafimaad qabaan oo maskaxdu u gudbiyaan dhawaaqii ka soo gaadhay waa bari marka ta koobaad arinta koobaad ee muhiimka ah waa in dhawaaqaasi inuu si fiican soo gaadho maskaxda Rooble si loo garto waxa waa bari yiri talabaad waxa weeyaan inuu Rooble
ogaado ama yaqaano waxay ahaydey rooble yaqaano ereyada af Soomaaliga ereyadu ku hadlay waa bari waa inuu yaqaano haddii ereyadu waa rooble garanay waa bari ku hadlay rooble ma garan karay waxa waa bari marka inuu ereyadii af Soomaaligi uu yaqaano kuma filna taas waxa kale loo baahan tahay saddexaad inuu rooble garto hab dhismeedka af Soomaaliga af Soomaaligu hab buu dhisan yahay habba ereyadu isku daba galaan si kasta iskuma daba galaan qofka hadduu ereyadii af Soomaaliga yaqaano dhawaqinaysa inuu maqlayo kuma filna inuu afkii fahmo wax laga leeyahay waxa dhici karta ereyo imika saddex ereyadan soo qaataba ereyo af Soomaaliya waraabe waa af Soomaali ulna waa af Soomaali geedna waa af Soomaali haddaan isdaba dhigo waxa ka dhiganta ma jirto waraabe ul geed haddaan idhaahdo qofkii Soomaali ku hadlay marka computerka marka looga baahan yahay isagana ina af Soomaaliga ama af la fahamsiyo waxa horta muhiim ah saddex arrimood ina horta la soo gaarsiyo dhawaqi mikrofon lagu soo gaarsiyo ama si lagu soo gaarsiyo dhawaqi qofka binaadamku ku yiri inuu mikrofon dhowr kun eri ina la baro oo ereyada ugu badan lagu hadlaa oo fudud la baro haddii 20 kun noqoto ama 10 kun eri noqoto dhowr ereyada af Soomaaliga la baro iyo si loogu dhawaaqo eri wala si loogu dhawaaqo saddexaad waxa la barayaa hab dhiska af Soomaaliga af Soomaaliga si loo dhisay si uu dhisay la barayaa oo wixii af Soomaaliga inuu kala garanaya marka ereyada si isku daba galeen oo dhan buu garanaya taas keenaysa inuu af Soomaaliga qori karo marka cilmi baarisaasi waan galnay ilaa 2004 waan galnay waxaan noo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo ugu tala galay koobaad horta in dhaqanka lagu badbaadiyo waxaad ogtihiin dhaqanka Soomaalidu ama dhaqanka wadankeena Soomaaliya xafar laga hadlaa dhaqanka Jabuuti inuu lumayo waayo odayadii ayaa si yaraanay si mootay hooyanaya ilaahay yaadhay alla naxariisto odayshiba hooyanaya marka dhaqanka uu sii dhamaanaya taas keentay oday walaal socdaaba inuu la tago wixii cilmiga uu garanay hadday noqoto cilmiga geedaha hadday noqoto cilmiga xidiga hadday noqoto cilmiga maxay ahaydey buuraha cilmiga badda cilmiga daawooyinka taariikhdii uu ka hayay ummadii ka horeeyay taas keenaysa inuu maxay ahaydey cilmiga lumo markaasi madaxweynuhu markuu bixiyana odayaasha laga qabto adeecada ka qabato waxa loo barnaamij jiray marka waxay barnaamijyada la qabanay way badan yihiin dhowr kun saacado hadal la haya hadaladaas loo qoro waxa loo baahday aalado waayo waad ogtiin oo waxa dib badan tahay in hadalka la qori karo imika cajilad saacada hadii qofka qorsiga waxa lagu qiyaasaa xaq cilmi baarista inay ka qaadan karto 2 maalmood ama 3 maalmood inuu saacad hadal qofka qosaan qori karo waxa hawl badan weeyaan marka ku saacado hadii la haysto hawl badan baan qasado 10 sanadood ka badan qaadanaysa marka aalado ina sameynaa amarna lagu siiyay qori kara hadalka Soomaaliga qori kara si dhaqanka horta loo badbaadiyo kow talabaad san ula jaan qaadi karno moogta hore marka dawladda gaari doonto marka afafka computerka iyo aaladaha loo furo afafka waaweyn baa lagu bilaabi doonaa kulli Ingiriis iyo Faransiis lagu bilaabi doonaa Shiine laakiin afafka Afrikaanka wadamada yar yar de marka dambe loo soo gaaro maahan inta hore way ka hari doonaan umada si aan uga harin af Soomaaliga in asna la raaciyo afafkaasi hore maraya ayaa amarna lagu siiyay waan bilownaa 2004 inaan af Soomaaliga oo dhahdiisa computerka ma aaladaha fahamsiin karno 2005 horta aan ku bilownay inaan fahamsiino tirooyinka gaagaaban 1 2 3 4 ilaa 9 inaan computerka markaan u sheegno haw qori karo oo garanayaan 1 kaniri oo garanayaan 3 kaniri oo kala garanayaan 5 kaniri 6 kaniri taasaan ku taxaluusay waan ku guulaysanay sad ku arkaysiin biyo shaashada laga soo bixi doonto kasoo 2006 waxaan iyadna ku sameynay inaan computerka tira dhamaanteed aan fahamsiino haday tira lambar tahay tira buuxda tahay lacag ama waxda noqoto oo 450 iyo 260 computerka qori karo saan u yiraahdo qori karo 180 dana saan u qori karo 13 dana saan u qori karo haddaan lambar telefoon siiyon eber 253 8 saan u qori karo marka tirooyin oo dhan haday noqoto tira lacageed haday noqoto tira maxay ha qori karo computerka 2006 baa gaarsiinay 2007 waxaan gaarsiinay inaan eriyo kooban aan computerka fahamsiino oo kelmad orod oo kale buur oo kale bil oo kale af oo kale
هري أنكاس كوكومنا كمبيوتر مركان شغلنا هقري كرو يسوي عد بقى عن تولي تجين وعدان دول شو سنة كنا بور هبور ناسقر مركو عد كيجا مغلبة تاسنا بكرة تدبي جارسينين لبكرة نزيد واحد جارسينين أراه جابن أو سمار كورا جامنا قري كرو لبكرة تمانكي أراه موتها بوحدان جارسينين ويكمل بدهنا تمرد جبوت أيها سرسمية وفوري شركي أوركا wadamada islaamka oo kale warankaas hadalkaas oo kale noqon karaan gaarsiin maanta laba toban kilo waxaan gaarsiinay inaan raadiyoyada BBC noqoto ama STD noqoto inaan si rasmi ah barnaamijka u qori karo oo marka computerka hadii raadiyo la maqashiyo ama war lagu dul akhriyo ha warkaasi oo aad gacan u la tagin ha qori karo oo si yahay u qori karo taasina waxaan u asmaxaysaa inaan dhaqankii cadcad yaalay ee cadcad yaalay badbaadi karno buwa ka dhigi karno iyo inaan teknolojiyada moogtahay afafka kombiyuutarada la bari doono markii soo soo baahan aan ku raaci doono oon moogta ka hadhi doonin markaas waxaan oran karnaa maxay ahayd 1972 af Soomaaliga hadii lagu qoray Soomaaliya oo talaabada u horeysay guusha u weynayd af Soomaaliga gaarsiin noqotay qoraalka af Soomaaliga lagu qoray Soomaaliya 1972 afarta sano kadib waxaan oran karnaa guul labaad bay joogtay u soo heysay af Soomaaliga oo ah in af Soomaaliga uu noqdo afkii ugu horeeyay ee Afrika ee computerka uu garto oraahdiisa af Soomaaliga ugu horeeyay in afkii Afrika ee computer garto afka reer Yurub macluumaad dhanaya ku Ingiriiska iyo Fariiska Afrika waaweyn baa lagu qoray lagu wada qorin Afrikan afkii ugu horeeyay ee 1978 aan ku soo bandhignay jaamacadaha moogta Mareykanka iyo dunidaba lagu qoro oraahda computerku garan karo oraahdiisa inuu noqdo af Soomaali guushaasina waa guur Jabuuti ka timid Jabuuti soo hoysay imikii haatan waxaan tusinaa barnaamij mudanayaal raadiyoga Jabuuti oo computerku qorayo arrin waxana weeyaan furitaankii oo batay odayadii war iyo waayarag waxay dareemeen in imika raggu ay mas'uuliyadoodiiba dayaceen oo dumarkii sidii loogu samri jiray iyo sidii reeraha loo wadi jirayba ay ka tageen oo wixiiba uu noqday islaantii waan furay iyo waan furayaa haddaba bal dhaqankeena wanaagsan sidee bay ahayd reeraha loo wadayay furniinka maxaa lagaga badbaadayay gabadha la furo yani hadii la furaba sidee u dhaqmi jirtay ninku hadduu furitaan batuu dumar furfuro sidee isna loola dhaqmi jiray bal waxa arinta inoo faaqidi doona odayadii war iyo waayarag hana ugu soo horeeyo jaamac Muuse Miicad hawshaas maad guusha maanta Jabuuti soo haysay lagu xasuusan doono hadii Soomaaliya lagu xasuusanayo qoraalka af Soomaaliga Jabuutina lagu xasuusan doonaa in Jabuuti noqotay in gaarsiisay af Soomaaliga inuu computerku qoro ilaahay ka soo hawsha guushaasi waxa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Umar Geele oo nagu maalgeliyay noona diray hawshan oo qabtana geeyay hawsha gaarsiiyay meesha gaarsiin karsanayeen hawshana waa wadnaa waana gaarsiin inta gaarsiin kareynay af Soomaaliya noo mudan Ismaaciil Umar Geele wuxuu noo diray afafka wadanka inaan teknolojiyada ku dabaqano gaarsiino af Soomaaliya af Afrika dad baa looga maqan الله يبارك